dadka koonfurta ku nool and I believe ee ku diganaya waxa ka dhacay magaalada Garowe waa kuwii isbaarada iyo xaaraanta lagu soo koriyay koonfurta waa from Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo marka meeshaas waxa kala soo baxaysa inta jawaabaysa aada soo akhriya Soomaalidu waxay tiraahdaa far iyo meel bugta dadka hadda oo maanta iyo shalay iyo daraad wax wareeba ka dhacay Garowe ku diganaya waxay baarka arkaan siyaasadda ka arkaan waa saa sheegtay Ibrahim absolutely saa sheegtay Xasan Sheekh biladu ku jira waxa waardiyay sida White House ka la waardiyay Denis saasoo kale Musa saasoo kale masaakiinka commonka aan adiga dhimanay laakiin qofka aqliga aan lahayn oo meel intuu ka fursan Axmed ka sheegayso waa mid oo amxara la yaqaano maalin wuxuu iska soo dhigay hawiye maalin daarood maalin isaaq maalin digli milafle waa wax nolosha ay ka dhacday oo maartay opportunity ah marka dhulka lagama soo qaado laakiin aniga qof aqli leh oo dhiig Soomaali ku jira intuu soo istaago qabiil ku justify gareynaya oo dhahayo reerka aniga la yiri waa ka dhalatay haday maanta dad xasuuqaan miyaan leeyahay waan iska no haddii laga gardaran yahay waan la safanaya haday gardaran yihiin waan ka jeesanaya laakiin dadka waxa ka maqan intaas oo kale ninkii hadda hadlo kale qabiilkaaga sheego sababtoo qabiilkiisu taageeraya nothing else wuxuu ku leeyahay qabiilkayga waa saxsiin mar walba ma saxsana qof walba reerku ka dhashay qalad uu galay meel uu doona ka imaado waa la ogyahay hadda qofka ku farxay waxa Garowe ka dhacay xamar ka dhacay ama Gaalkacyo ka dhacay idaas maanta meel ka dhacay waa qof axmaq ah aqligiisa lagu soo koriyay waxaana waa lagu soo koriyay ku dheeraan waa soo afjarayay waxaan waa lagu soo koriyay qofka hadii la baro maanta markuu dhasho wiilka dhashay ama aan dhalay gabadha dhashay ama aan dhalay hadii lagu barbaariyo Soomaali baa tahay Soomaali ma ku dhalto ku dhimanaysa taas ku baxaya laakiin hadii la yiraahdo qof Soomaali ah gabar Soomaali ah ma guursan kartid sabab waxa la yiri lama guursado kun sano ka hor oday waalan oo crazy wuxuu yiri waxa la yiraahdaa midgaan ama gaboyal lama guursado waa lagu koriyay the same time gabdhaheeni Hollandereyaasha nasabka waxay guursanayeen niman atheist ah oo ilaahay aan aqoonin waxa dhaamo yahuud iyo kristaan baa dhaamo oo ahlu diin oo kitaab aaminsan waxa aaminsanaadaan laakiin waan wala raasayna waayo waaan waxay ahaadaan maanta waxaan taageeraynaa si aan kursi aan u helno qowmulud baan taageeraynaa marka ninka intuu ii yimaado waxaan nahay dad noble ah oo wanaagsan oo inta meedkoodii ku diganaya oo lagu sactumayo waxaas waxay noqonaysaa war qofka taageer Xasan Sheekh taageer farmaajo taageer ka soo horjeed Xasan Sheekh is responsible qabiilkiisu waxay sameeyaan farmaajo saasoo kale Axmed Madow saasoo kale Denis saasoo kale maanta qofka intuu soo istaago yiraahda Faysal Cali Waraabu yiri baga waxa ka dhacaya baalki Garowe Faysal ma ahan ciyaar TikTok ma waa nin weyn oo mas'uul ah inkastoo uu yahay maaragtay hadaladiisu kan laga soo qaadin baga ayuu yiri marka Faysal intee dhageysan karta thousands of millions oo reerkiisa waxay yiraahdaan baga why last caanood waxay ka sameeyeen last caanood reer Puntland waxba kama sameeynin qaraabo weeyihiin qaraabanimo waa la isku gargaaraa waa la soo dhaweeyaa laakiin de baraawe waxa ka socda reer baraawe inuu yiraahdo baga waayo last caanood iyana waa Soomaali Soomahan ama reer Gedo uu yiraahdaa ama reer Hiiraan uu yiraahdaa ama reer Mudug uu yiraahdaa waxay ku tusaysaa mindset-ka ari siyaasi ma yihi haddaan ahaan lahaa xataa ma samayn lahaa waxaas oo kale no waan sariigan lahaa qofka bani aadamka ee Soomaaliga ee muslimka waxba tari mayso salaad baan soo tukaday iyo xajkaan aaday iyo camalkaaga kaaga horeeya ninka Soomaaliga ah Faysal markuu xajka aada maanta I don't believe it hadduu kacbada ku soo wareegsado why wuxuu yiri baga waxa ka dhacay bahalkii maxaa la yiraahdaa Garowe because siyaasadiisa iyo waqtigiisa yar ilaa 60 jir hadduu dhaafay 70 jir uu yahay wax yarba u haray Soomaali ma gaaran halkaas Elberde laas caanood Garowe waa loo jeeda banaanka la soo dhigay laakiin qofka hadii aad leedahay wax walba oo dhaca reerkiisa inta iyo I suppose hadduu ahaan lahaa daarood I'm sorry ama Mariixaan ama Majeerteen ogaadeen we wouldn't even have this discussion laakiin Soomaalidu waxaas waa necab yihiin you see the reason why some people are doing is because waxay arkaan nin hawiya meesha fadhiin daarood uu bedel taasay arkaan kaliya dad qaarkood afkoos adiga kuma leeyihiin ku socda waxa ku xiga ninka la yiraahdo Mr sorry Duniya gabar la yiraahdo ku xigta Duniya إسماعيل دنيا إسماعيل هو رؤوسه وما سنتها عبد الناصر أنا واحد بدل مقرناي ما عرفت هدي دتكو سيتي وكله تضدوا لي قبيل كيس هالشيء وأسي كيس مش يجانا ما قال ولا أنا أم ريحان from Gedo so أنا no شيء من قبيل كان لازم You ask me qabiilkayga aniga qabiilkayga waa Soomaali ay waa ka gudbay waxaan haystaa a PhD on computer science 10 years baan jaamacad dhigaa waxaan soo dhigay 14 jaamacadood hadii categorigaas oo qabiil fiican igu geynayso aniga qabiilkayga waa Soomaali waxaas ma ka soo gudbay qabiilna lacag kuma helin qabiilna kuma faano qabiilna marka karfanta la geliyo lama dhahay laandeerihii reerkaas ku jeeda dhimanay marka that's my qabiil my brother so do
ومحسنت We're ومحسنتهاي talking أنا about عبد politics, الناصر like in Abdinasir. We're سيتي talking about سيتي politics, بلوتك not قلت كذا personal, هدلاي not ومحني personal كان achievements, you know. But kusع ولا. fiiri city waa mahadsan tahay anigana wiilkaas cabdinaasir ha ku qabiilahay soomaali ahay laakiin maadaama maanta oo dhan dad maaragtay hal dhinac u raran oo maaragtay caraysan oo maaragtay si maaragtay ma garanaa meeshay wax ka gaareen waxaa rabaa keli inaa ogaado madaxweynihii horeeto wuxuu waraaquu soo diray wuxuu ku baaqay inay maaragtay garow arrinteeda la xaliyo intii dhibaato dhacaysana soomaaliya ugu dambeeyay qaraxii ugu weynaa hadda maaragtay sooba ka dhacayay hoteelkii la weerarayay baraab waxaa ka dhacay maxalla ceelberd waxaa ka dhacay inta qalalaso ka socoto wadanka weli ma arkin asagoo dhahayo hala dejiyo ama maaragtay allah u naxariisto so waxaan rabay markaa wixista qabyaalista yaa soomaaliya u xun midda kaleto rabay inaan ogaado maadaama iskugu yimaadeen dad aan ku tuhumayo xoogaa inay maaragtay eroon yihiin waay mar walba ay soo dhowdahay doorasho ama muddaxileed uu dhammaado madaxda soomaaliya uu u bilaabmaa qalalaaso iyo dastuur bedel iyo one man vote iyo waxaa la aadayaa u bilaabataa maxaa looga gudbi layahay maaragtay maadaama la yiri dowlada la dhisanaa dadii soo qaateen maxaa la dhahaa isheeg maxaa la dhihi jiray baarlamaan la samaystay oo maaragtay meel la iskugu imaaday maxaa marka baarlamaanka iyo maxaa marka horta loogu hortegi waaya maxaa mar walba deegaan ha ahaado goboleed ha ahaado wuxuu raba ahaado mar walba muddaxileedkiisa sii dhamaana sanadka sii dhamaanaya qalalaaso u weeyaan marka maxaa ma wax soomaaliya u gooni ahaa mase wax adduunkoodna kala mid nahanay marka dadka kaleeta ku tilmaamayay waxay yihiin adiga horta isfiiri maaragtay calculate isku samee you are not better qof ka wanaagsantaa ma jirto soomaalina inta badan ma kala wanaagsana marka inkastoo aan raba xoogaa inaan maaragtay dhooqeysto maadaama dadaa xushmeena meesha joogaan gabahna iga siistay laakiin meel kaleteen ii taalaa insha allah waa inood garaysan yihiin marka adeeradiina markay dadka maaragtay qaaska ah ay usoo jeedinayaan nabadda soomaali oo dhan nabad ha ka dhigaan marka saasoo soomaali oo dhan baaqa usoo jeediyaan dad goorihaysa usoo jeedinin marka intii dhimatana allah u naxariisto maaragtay inta dhibaatada haysana allah ka qaado raggeena soomaaliyeed oo mas-uulka naga ahna maaragtay ilaahay ha ku aadiyo wanaaga marka waa salaamantiin dhammaantiin waa iska aada u mahadsanta duniyo intaana qof u dhiibin labadan su-aal si 10 seconds ina ugu jawaab horta one thing I can say to you is intaan qof inta ku jirta aniga u malayn maayo qof farmaajo iga badiya and I know him since 2009 kana isnaqaanaa waxaan ku tilmaami karaa least qabiilista oo soomaaliya least ninka ugu dambeeya oo lagu eedeeyay qabiil waxaan aniga aan aaqir usoo fadhiisan kara inuu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo personally anaan waqaano aan ogahay qofka actionkiisa ku xiranta markuu qabiilistay uu aaminsan yahay waxaas oo kale maxamed cabdullaahi farmaajo waa nationalist waay qabiil waa ka fogyahay waxaan xasuustaa personally hadda ka hor waagii isaga madaxweynaha uu ahaa personally in qofka isma bedeli kara cabdinaasiro no hold on one second no qof bedel abayo one second duni qofka laguma judge garayn kara ma ogtahay wuxuu asaga soo qoray intentionkiisa anaga caloosha kuma jira ma ogtahay waxaan xasuustaa aniga 2000 I think 18 kii dhamaadkiis in gudoomiyaha bankiga dhexe la soo xulayay nin reerkiisa oo Mareyxaan ah oo PhD economist ah well experienced ah ayaa topka ku jiray xilligaas waxyaalaha kaliya aan dhihi kara waxay tahay uu jooji waxay tahay amaal ugu yiraahdaan in Mareyxaan meesha keentay waxyaalaha aniga aan madaxweynaha xataa isku dhaafnay xilligaas waxa aan dhahay madaxweyne Mareyxaantu Soomaali Soomaalian dhahay waxa kale ku xigtay aan ogahay qarno daad ayaa qaaday oo buuraha ka yimid same time baar dheer oo geda ah waxa ka dhacay fatahaad webiyeed aad iyo dhibaato soo gaartay madaxweynaha xilligaas xitaa ma soo meeshin garin gedo laakiin lacag baa loo ururiyay qardho waxyaalahan kala yaabay ahayd madaxweynaha intaas wuxuu iska ilaa which is completely wrong by the way in uu gedo dhaho lagu tilmaamo marka maanta qofkii yiraahdo anoo nool maxamed cabdullaahi farmaajo qabiilisa of course dadku waxay arkaan they see the things black and white waxay leeyihiin muxuu maanta u yiri kaa oo u dhihi waay meeshaas kale hadda haddii berri la dhihi lahaa arrinta gedo hadda for example hadduu maanta kasoo hadli lahaa qofna ma dhihi lahayn ninkii wallahi Soomaali u turay awna waxa leenahay here we go madaxweynihii reerkii meeshii soo galay ayaa la leeyahay isagoo shaqaba aan ku lahayn gado reer Muqdisho uu yahay taas waa mid tan kale ku xigtay you absolutely right xilkan
iyo awoodan privilege-kan la haysto ani 100 jeer aan isweydii waan soo ogaaday waxaan soo ogaaday dhowr jeer baa madaxda qaranka waxaan u raacay maaragtay state visit baan u raacay ama Mareykan ama Talyaaniga kuwan goboladan iskaba dhaaf markaad tagtid VAB nimada aad kaga duushid airportka hotelka VAB da degtid business class-kaaga shopping-kaaga lacagta aad helaysid noloshaada dama aad ka fikirin intaas ayaa u yeelaysa Soomaali horumari iyo qof Soomaali u turay maanta shacab xabad iskuma tuuri lahayn so all of them expression ayaa jirta aad u foolxun Soomaalida ay tiraahdo iyo labadiis dhagood ay yiraahdaan waa expression iyaga kamoodi madaxda kamoodi of course sida awey sababta loo kordhisto ma ahan maxaa la yiraahdaa wadanka wax u qabo qabiyaad maraysa waxaan sameeyay no it's nothing to do with enrichment qofkaas uu samaysanayo privilege kan asagii asxaabtiisa iyo tolkiisa iyo dadka kale markaas hadduu corrupted yahay u dhow they don't see as a corruption uma arkaan waxay u arkaan privilege iyo awood la siiyey haddii maanta ay ahaan lahayeen maxamed bin salmaan ama maxamed zaid kama welwelaan way forever ay ku noolaan lahayeen laakiin waxaan kusoo gabagaynaa the biggest problem aan ku arkay hadda shalay aan kasoo tegay xamar aniga I was there 7 days shalay aan kasoo tegay waxyaalaha ugu daran waxaa arkaysa anoo wasiir ah lacag badan soo gasha waxaan haysta 3-4 bulletproof askar ay waardiyeysa diyaaradda immigration ma maro boorso ma qaato diyaaraddan kora first class waa soo duula adduunka lagu soo dhaweeya all of a sudden within 4 years xildhibaanadii waa luminayaa wasiirnimadii waa luminayaa hoteelada magaalada xataa qof shahay lacab ay mare because I was a prick markii hore dadkan ma salaami jirin arrogantaan ahaa education background-kay waa hooseeyey so the reason aan kusoo gabagabay ay ugu darsanayaan ma ahan jacaylka Soomaaliya iyo Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle ma ahan iyo Galmudug waa privilege-kaas ay haystaan oo markaadna ay ka baxayaan maxaa ku dhacay kuwii oo ka baxay horay wallahi qof salaam xasan banaanka ay joogaan marka waa ka baxay waxaa ku xiga gacmo badan baa taagan waxaan filayaa inuu ku xigo samatalis ku socba samatalis ku socota samatalis ku xiga مين مقشع عبد الناصر si fiican awood ونيه هو أفر أرنا كهذا لها أنا معناها ماركتي سياسة سوماليا 20 سنة لسه دافي وأرضي أنا وهاي marka afar arrin aan rabaa oo meesha aan ku arkay oo muhiimna ay tahay maxaa dhacay 10 sano camalan ka fikiray marar badan waa sheegay meel badan waa ka sheegay dadkii yaqaanan waa ogyihiin haddana qoraal dheer aan ka diyaariyay oo arrintan Puntland uga hadlayay aan aqoontaasi waa aragnimo sadeegsanay waa kula talinayn akhrisin waxaa jirta islaamku wixii ka horeeyay waxaa la dhihi jiray waana soo kooba because maxaa dhacay time kana very sensitive way islaamku wixii ka horeeyay jaahiliya la dhihi jiray macnaha jaahiliyada asalkeeda waxa way reerkeyga gari gardaro jaahiliyada taas waa ورنا حتى حق جركة أو سيد كتب كيسة ماركتي مايلستون معلم في الطريق حتى وين كهلا ينتاسوا أو ماركتي أنا ريركي جري قدر جاهلي ويتاس إسلام كانوا وحاول السجن تيلو وحير كبدلي وحولي هاي رير تولكا هدي جري لي جري قدر أساس ولها لكن كافيت وسمعنا وحولي هدي قدرني هين قبو هدي قرلي هنا تعجر كنا لما تاس marka taas waxa waaye fikradda oo xaakimiye ugu yeeraa ninka la yiraahdo asaga xataa waa cala mawduudi ka soo qaatay I really encourage you ina fikradahaas akhrisin maxaa dhacay qabiilka anaga dhibaatadan haysto waxa waaye xataa kii islaamka looga baxayo waa macna si loo fi gardara markaa tiraahdo jaahiligaas ay gelaysa anu hadda ma hayad wadaadadii businesskaas wadaadada qaar kood ma gelay dadka lagu galaysiinay taas number 1 waa number 2 عبد الناصر سؤال ما أركي أو أرنت سماقسي أرهم بدن كهلاي أرنت هذا جرو كده عدن حرير لذا أرنت حمر حرير لذا سوماليا دبعت وين هاي ستو حوا divided sovereignty أجرت monopoly of mechanisms of coercion مجرو هل قف أو عيدن كي يوحي هاي أو تلذي سي أي شرعي أو شقين مجرو هذا ربنا ترى سؤال حانو كلا قبائل هو بيسن وحي هذا مجال هذا كده قال لما أي إنك سو دولة أي ماركتي أي قيب كيهين هذا هوب تكنيك أي بالها ليه هنا الوجود الري haddii marka hadda tusaale ahaan oo kaleeto la yiraahdo hebel soo xireen noqonay qabaa'ilkii marka ma dhicin monopoly of the institutions of power ma dhicin Soomaaliya dib ka jirta taas waa xamar hadda saasi ka jirta qabaa'ilkii ah hubaysan nin marka hala soo qabtay reerkiisa soo qabsan marka maxaa loo baahan yahay laba mid ah marka dawladnimada lagu gaara midna waxa waaye coercion khasab inaad dadka oo dhan hubka inta ka ururisid sida shabaabka saartay asamaysid waxa wanaajin kartid wanaajisid coercion waaye kaaskii shalay dagaalka laga galawa midna consensus waa heshiisa la gaaraya macnaha disarmament demobilization ciidanka meel la isugu geeyna dad la soo doortay xukumaaya ciidanka iyo lacagta maxkamadihiina waa shaqeynaa oo madax banaan yihiin ninkii dambiga la qabiil ma galin asaga galay
oo la soo saara marka annaga horta taas inaan ogaano hadda one of the easiest ways taas lagu gaari karana waxaa waaye doorasho hal qof iyo hal cod divided sovereignty alxaakimiyadan kala qaybsan ama saadada shacabka loo celiyo kaas macna hadda Soomaaliland waxaan maleynaa xogaa yar dhanka garanti Soomaaliya xataa qabaa'ilkii hubka laga wada qaaday haddana waxaan u maleynaa weli qabaa'ilku waa hubaysan midda ugu dambaysa waxaa waaye asymmetrical masterska waxaan ku diyaariyay hadda kahor ma dhammaynin dagaaladan Soomaaliya darteed aan dalka uga soo laabteen dagaaladaas ka qayb galay dagaaladii nimankan wadiidka lagu geli jiray jaamacaddan waxaan ka dhiganayaa Virginia oo George Mason University of Minnesota and George Mason University of Virginia Arlington Virginia school waxaa ku yaala Institute of Conflict Analysis and Resolution hadda waxaa loo bedelay School of Conflict Analysis and Resolution waa meesha kaliya PhD looga qaatay nabad samaynta conflict resolution PhD ku qaadan kartaa وانا laba qof ka qalin jabisay oo Soomaaliya intaan ka aqaano saddex qof meelahaas oo kale waraaqdi ugu dheerad aan ka qoray oo waliga niyadeeda aan ka go'in waxa waaye qabaa'ilku they have what's called asymmetrical systems asymmetrical waxa ku fahmi kartiin dawladda iyo shabaabka hadda oo kale asymmetrical warfare ayaga dagaal toos markii lagu soo qaado waa carraan soo rida asymmetrical marka waxa la lahaa laba system Adnan Solan waa yaqaana incompatible oo laba computer isla shaqeyneen qabaa'ilka Soomaalida saas waa dawladda iyo digle marifle isaaq saas waa nin markuu hadlay halkaas uu ka hadlaa mid kalena halkaas uu ka hadlaa marka waa maanta hadii 2 milyan oo saacaan idin siino waa saas ku dhamaanay asymmetrical systems waa systemyo oo incompatible see marka lagu gaaraa inay compatible noqdaan oo waxa lagu gaaraa markaan ka hadalna facts waraa adiga haye xaqiiqda haysid maxay tahay dad waxay yiraahdeen Xasan Sheekh wuxuu ka dambeeyay dagaalka Garowe ka dhacay in la yiraahdo rasiidka noo keenay هذا رصيد كنتين أنا جن عن رعنا مركز أنا وري عنك وحش شيء وروني عند بقلنا أسكر نون يعني دين تنساس كل سنة هاي أو ما أعرف دين الإسلام كحتى وحلا هذا هاي البينة على المدعي قفك وحشكت أو إلى ذلك ها توجه أسوي عليها عدين كم واليمين على من أنكر أسكر وحلا وري هذه إنكر هذا ده دارو اللي أساس ولا مركا enlightenment يوروب ناس أنت هسه كسالة سنة أيضا the Max Weber أخرية Germany leeyahay Europe horumarkeedu wuxuu ku xirnaanaa the rational institutions Abdinaasir Solan actual example waa kaga mahad celina Soomaalida waa ku yirhiin dad macnaha labada dhinac karbaasha ma qoladeenan MBB da ahna karbaasha qolada CBB na karbaasha waa kaga mahad celina yani wuxuu leeyahay Max Weber ka rational institution hay'adahan waa inay aqli ku shaqeeyaan cadeyn ma haysa ma iska bax cadeyn ma haysa ha taageer state ku markuu wuxuu noqonaa rational institution hay'a oo aqlaniya أنا مركز تاسان كلها تلين لها أنت سهرب إن شاء أو وحنا نقدر مركز أنت كلا تنتي بنتلان بكاسة هايست سومالي هايست لكن سجار أنا وحنا مسني عبد الدنيا أنت خلدنا دان واشيء مرة بنقول عليه وحكي لنا مع وراق ذي ماشي عن سوق ليه أحد صدق هذه حسب كليه ماشي ترتمس أنت كلو ماشي وديري أنت سهرب إن شاء الله مع سنتك مع سلام. عبد الناصر سمتلس and with you follow up question هذا Nelson Mantelis arrinta oo Europe oo wadamada nation states ka cusub oo hadda adduunka ku dhaqmo oo Europe ka timid oo ugu horeysay Faransiiska iyo Mareykanka iyo the Westphalia systemka one of the biggest precursor was separation of church and state. I hope you know that because isku haysteen and empires iyo diime iyo isku haysteen. Do you think that equivalent in Somali culture waa qabiil? And do you think we would benefit from a separation of qabil and state? Or madama or dadka ay jiraan dadkeena oo qabil ka soo uu yahay oo profession leeyahay ama shaqo oo profession leeyahay bal ka waran dawladda iyo representation ka kuwaas lagu soo saleeyo because personally I think there can never be an Somali qabil. It's almost impossible when I see on the order of Mbagati 20 years وجرا and every region every global one microcosm of Somalia now put waxa la isku haysto nagada waxa la isku haysto Hirshabelle is all of them they're microcosm of Somalia entirely and waxa dhan waa wada qabiil is wada raacdeysanayo so haddii aad soo qaadanayso tusaalaha oo western society nation state ka sida usoo dhisteen their precursor was separation of church and state don't you think we need a separation of qabiil and state at some point waa ka bax وني هذا كور عيان رواتان كوشة I encourage you أنا نكان أو science عرمان العمران the science of civilization قرني في التبنات ابن خلدون آخر كاسة أنا قاعد نشر هاي معناها وعنك وحال هذا first sociologist يلا ده دور خايم كي فرانسيسكا سيكوري شعوب تا قبلي كأحسد أن نقول كلاتا state كحقوق بها هي إنه النقضاء قبيلكم بركورسر واي to the state
state kuna predecessor waa asaga macna wax si kala daan u dhigno qabiilkii waxa u baahan tahay inaad kula dirirtid xaq jirkiisa qabiil walba wuxuu leeyahay xaq jiru leeyahay hawi xaq jiru leeyahay daarad xaq jiru leeyahay therefore marka qabiilkii inuu state ka taageero oo the purveyor of the state institutions noqda u baahan tahay فاهميسا marka haduu saas yahay qabiilku wuxuu noqonayaa ma dhici karaba hadda adiga ado habargidina ama gaala ma ka dagaalami kartaa maanta garow kama dagaalami kartaa barveer ma batihid of the state institutions qabailka marka waxaan kaaga wadaa qabiilka inherently ma aha maxaa la yiraahdaa negative na ma aha positive na ma if any wa barveer of the state institutions wa first just a backup another backup ما قاعد أقعد كأقول صلاة بناء just الرالي هذا أحمد ذاك يقول just الربارة ودتك قبيلك كل رقمه دتك كليه وهذا كفة كذي وخليج كان بهذا smooth transition from the Ottoman Empire وإنجليز كي عوي then to the discovery of oil لكن دتك كلا قبيلك أهون دور كي كجران سيدا nomads كا أي بدوينز كا يا على بيستين كا يا نورث أمريكا يا indigenous كا أستراليا so أنا oil ما هي سنة وضن لكرنا جماعة حكومة and so what went wrong 20 years of Mbagati order what went wrong how more can you apply قبيلك how long can you try so خلنا فرصة عن سين عبد الناصر سؤال أنا روح سوق لي فيديو وحمر كجهل لاي أنا وحنا أركا إمبجاد أورر كي فإذا بدنا وياش حمر هذا السيد هي 20 سنة كور هذا معهن لكن it has inherent institution إبكي جرو حواي دولة ده أو حلو بهاي الدلك جارسيسة دورشة هالقف هالعد irrelevant يونقنا كلام institutions قبل كل واسي جرا أو هذا كور عنين وحير أنا ضيع دكتور أبقى القف كلمة دورة ما يور وجرا معناها ننكر مركي لكن وحمر والبحوجي سنة متروكراسي معناها dadku waxay fiirinayaan hadda dadka aniga magaaladan aan ku noolahay dadka dhakhtarkii u tagayaan reer hebelana uma tagayaan isha marka laga qabto waxay u tagayaan dhakhtarka ugu fiican ishooday jecel yihiin gradually public affairs waxay noqonayaan in la yiraahdo yaa ugu fiican oo shaqada noo qaban kara hadda Japan waxa la yiraahdaa public institutions waxa taga kaliya dadkooda oo the most intelligent yaa taga because maxaa dhacay prestigious waaye qofka asagiina wax buu baranaa dadkiisana wax uga faa'iideeyaa marka anigu waxaan qabaa one man, one person, one vote can angalno and let us trust the Somali population. We're very competent with that can. Wama sinti. عبدالله سبقتها ولا حاجة صفا lagu jira waa mahsan tahay waxa ku xiga waxa ka horeeya kaliya Mr. Ilona waxa ku xiga Faisal da ku xiga marka. Thank you very much. Wama sintin adinka dhan. سمتال وحكش كنا شك في عن ما شاء الله تذكر كلا لو بان يعني ناسف تذكر كلا سولو إن عبد الناصر أديك ما سنتين جروجري أديك دن بلشة ماشي جوكت الصومالية وما سنتين نيو أرنتي هذا التايتل كوال بدلي أو تايتل كاسو حملنا يا إن أنا دعت كهين